السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaad shabakada laga bartay cilmiga technology guud ahaanteeda loo yaqaan Tijmaal. waa aniga Amiin Cabdiye. muuqaalka maanta haddii alle idmo waxaan ku qaadan doonaa sida looga bedelo magaca iyo passwordka modemka amba madaxaad internetka ka isticmaasho loo yaqaano modem. ugu horaantii waxaan marka ugu horeysa idin tilmaami lahaa modemadu way kala duwan yihiin. mid waxa iska leh oo soo sameeyay shirkadaha oo gaar u yahay, midna waa iska public sida D-Link oo kale. modemada inta badan public ah ee suuqaad ka soo iibsato ama dibadda laga soo diray in shirkadi si gaar ah u leeyahay amba shirkad calaamadeedu ku oolin aad ka soo gadato internetka ka iibsato internetka in calaamadeedu ku oolin, waxay u badan tahay in passwordka lagu gala ay uu isku mid yahay oo uu yahay default kaas oo ah admin iyo admin username iyo passwordka. laakiin inta badan kuwan ay shirkaduhu bixiyaan ay khaas u leeyihiin iyo u gaar yihiin waxa inta badan ay u sameeyaan password ka duwan ka ay isticmaalaan ama public ah ee ay ka siman yihiin modemada kale ay iskaga mid yihiin. ugu horaantii waxa marka ugu horeysa aad galaysaa oo ay ka wada siman modem ku shirkada bixisay iyo ku gaar aad ku soo iibsataba waxa weeyaan waxay ka siman yihiin waxa lagu galaa IP address ama number u khaas ah kaas oo gateway default gateway ah kaas oo ah 192.168.1.1 intaas ayaa lagu galaa oo wax kale kaaga ma baahna. inta browser walba ku qor ka bacdi wuxuu ku soo saarayaa interface-ka login interface-ka uu leeyahay shirkad walba modemkeedu way leedahay. anigu waxaan isticmaalayaa imika wax weeyaan some cable ama soo gasho modemka khaaska u leedahay soo home router-ka ah. passwordkiisu waxa weeyaan waxaan ugu qoro passwordkiisu waxa username-ka waad iska wada taqaaniin waa admin oo kaaway ka wada siman yihiin laakiin passwordka ay kala duwan yihiin. imika modemka TP-Link modemkiisa oo kale waxa uu leeyahay modemada aad aragtiin inta badan ee noocan oo kale ah. modemadaas inta badan yimaada dhulka waa noocan ayaad geeyga Soomaaliya inta badan ku aragtaa labada geesood leh. noocaas oo kale passwordkiisuna waa admin, email username-kuna waa admin laakiin kan imika aan insha Allah idin tusi doono ee modemkan home uu iska leeyahay soo gasho modem soo gasho ama shirkadan some cable waxay iska leedahay modemkeegan u khaaska ah. madaxeegan u khaaska ah wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale. password u khaas ayuu leeyahay oo shirkadu ku soo sadabgaraysay marka ay soo gadanaysay oo madaxaadan inta soo sidoo weegahay aan Google sorry mahay kuma jiro waa adiga arkay sawirkan casharkan ka sameeynay hore ku jira madaxaas oo kale waaye. madaxaas waxa lagu galaa passwordkiisa oo xaga idin ku qori doono oo markaad ka soo iibsanayso home router-na ay ku soo raacinayaan warqadda lagu bedelo waxaad ku galaysaa waa S capital waa SO capital ah iyo calaamad tacaajub exclamation sign. waxaad raacinaysaa knock waxaad raacinaysaa xidig ka bacdina team ayaad oranaysaa. intaas weeyaan passwordkiisu. passwordkaas ayaad ku galaysaa. okay aan koobiyeyno passwordkaas oo ah SO capital ah calaamad tacaajub knock calaamadda xidigta team intaas ayaad ku qoraysaa oo public ka wada yihiin waad ku jiidi inta ayaad oran amba login ayaad ku jiidi.
login markaad ku jiido waxa uu soo saarayaa systemkii ama xagaad ka maamuli lahayd marka ugu horaantii wax kale ka bedelin ama meel kale isku tagin kaliya waxaad tagtaa network inta badan kuwa kale waxa la tagaa oo network oo xagga laga bedelo wifi-ga waa hagaas waad ku jiidi wifi markaad ku jiido waxa ku soo baxaya wifi-ga systemkiisa oo adiga arkaya waxaad xagan ku aragtaa in magaca ku qoran wifi-ga uu yahay zo /lte/f5e7 intaas ku qoranto aan eegno inay ku qorantahay waxaad ku aragtay inay meeshii ku qorantahay intaas iyo intaan isku mid tahay magaca waad bedeli kartaa waxaad ku xaga ku bedeli kartaa magacaad rabto oo aad ku qoran karto waxaad kala tagtaa markaad passwordka bedelinayso markaad ku jiido kan waxaad ku jiidi apply oo xaga ku taala apply-daas ayaad ku jiid ka bacdi ku soo caadi uu soo ka bedeliya marka passwordka hor gelin doonaya waa ku cusub leen okay mid aan ku qorno tajmaal ayaan ku qoraynaa tajmaal aan ku qorno apply-da apply marka tiraahdo wait for change to be applied buu leeyahay sug uu ka baxaya wirelesska xagaas ayaa ka bixi doona ka bacdi markuu ka baxana ka dambe ayuu soo galaya iska sug waadiga arkay inuu soo ka baxay in yar dul qaado passwordka kii kale ayaa ku soo gali marka passwordka ayuu ku gelinaya passwordkiina marka si toos ah u gashanaysa oo marka aan ku jiidno wali waa calaamad waxa saaran it's not secure wali oo wali wada inuu saddex kareeyo ka bacdi iska yar xid ku celi still working haddana ku jiidno uu iska galayaa laakiin waxa la rabaa calaamadaas ay ka qaadaa in yar oo iska dul qaadan waa intuu soo kacayo weeyaan oo wali caadi uu soo wada kicin okay waasina wadiga arkay inuu soo wada kacay oo magacii iska bedelay markii hore ahaa oo aan kan aan imiga ka dhignay ee tajmaal isku bedelay tajmaal aan gelino passwordka waa kii lagu soo iibiyay ayaa wali ku jira kaas ayaan gelinaa hadhow anaga ka bedelina oo adarkiisina inuu inta yahay aan ku jiidnay بعد فرفاين ووضع وعضينا يا وفيش نتوركين كي هذه أركيا إنه عادي يروح المي ومجعين يسبدلي دمنا ووضع كبعد واحد كل شيء زي مركز السجنات ربطين الباسورد كبد شو wireless security marka waxa xagan hoos ku jiidaysa marka wifi network ku jiido wifi geed ku jiido wifi wuxuu hoos ku keenayaa page-kan hoos ayadu interface configuration ka ayad ku ayaa xaga hoos talada arkaysin device configuration ka maaha interface configuration ka bacdi channel sida kuwa magaca markaad ka bedelayso kanna waxaad ku jiidaysaa oo arkaysaa waxa la socdo kala hiding SSD markaad qarinayso kala wirelesska markaad rabto inaad qariso wireless security aad ku jiidi waxaan kala wad iska tagi encrypted iyo shibarka xagan hoose waxa taala keygan waa passwordkii aad ku galeysay ee wirelesska ugu lahaa xaga ku jiidi tusle wada yarkay passwordkaas ayuu lahaa passwordka aan ka bedelina mid kale ayaan gelinaa oo kale sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 intaas ayaan gelinaa apply on orana chances ugu sameeyna apply markaan ku jiidno uu ka baxay hadana ka bacdi intuu sida uu soo kacay ayaan suulinaa markaan suuno toos ayuu soo geliyaa okay uu ka baxaya in yar kii kaas uu ka sii bixi adiga arkay inuu ka baxay kii kale ay soo gali karna wali ma soo wada kicin hadduu calaamada ku soo dhigo still is working on waa laga shaqeynaa dib u soo kacaya marka iska yar sug in yar iska sug adiga arkaya inuu soo kacay oo kii hore marka imiga kii wuxuu u xirmi leeyahay oo caadi noogu soo dhigi leeyahay oo connected uu xagan hoosta leeyahay waxa weeyaan kii passwordka hore ku jira passwordka hore ka saar window 10 oo adiga sa looga saaro waxa weeyaan wifi-ga ayaa tagi wifi-ga marka tagtid wifi manager ba tagi marka tagtid hoos ayaa u bixi ka bacdi xaga waxa yaala tajmaal marka ku jira forget badanaysa forget marka tiraado ku noqo halkaagi waxaad arkaysaa in xagan ku yaalo
connect markaad tiraahdo passwordka ayaan gelinaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 saadoo hubisiin waad arkay passwordka markaad gelino next ayaan oranaa. next markaad tiraahdo wakaa sida caadi ayuu toos u qaatay kabacdi wuxuu noo soconayaa sadabkii saas ayaanad ku bedeli kartaa passwordka hadhow toolana log out umad qoran lookout. inta badan shirkaduhu moodamada ay bixiyaan password khaas ayuu leeyahay passwordka waa lagu siinayaa kaa ku gal network tag waad arkaysaa markaa calaamadaha ama sign in ama warqadda ay kugu qorantay inta badan ay kusoo siinayaan. mid haylaawina inaad subscribe tirahdeen channelkan ku naana YouTube aad subscribe jidin saad ula socotiin muuqaaladii ugu dambeeyay la soo dhigo shabakada channelka ku leedahay YouTube tajmaal. page kan ku leenahay Facebook-na haylaawin inaad live tiraahdo aad live ku jiido saad ula socoto wixii cusub ee soo dhignay article ah ama muuqaalo ama news ah. shabakada tajmaal iyadna haylaawin waxa ku jira article badan muuqaalo badan casharaan badan aad kala socon kartiin oo aad ku geli kartid tajmaal.com waxaad ku arkaysiin wixii su'aal ah ayaad rabtay inaad na soo weydiiso fadlan live markaad ku jiido waxa uu ku geenayaa page-kan waxaan toddobaad walba habeenka sabtida ama jimcaha aan soo galnaa si toos ah oo aan si toos ah su'aashaada kaga soo jawaabino xagga commentiga noogu soo qor su'aashaada ardaydan hore ama labadan qof ee hore ay su'aasha noo soo weydiiyeen oo kale aadna noo soo weydiin kartaa fadlan. videogii hore maalinta hore duubnayna wuu ku jiraa daawo haddii aad rabto waa 1 saac. intaas ayaan maanta casharkan ku jiri doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.